أنا بحرص بسم الله الرحمن الرحيم أنا بحرص مرة وكوجا محمد هاي دوّد أبلاشة ولا يجي بيه أنا قان شلنا هاي المها يجينا كوما كتير ودي قلاش بيا ومحمد هاي أنا وين محمد وح جرجار أنا كهلي وح إيبي مويان دولة ده أنا حكوا بلن قاعدة إنه دكتور كي يقصد هرنا هانايو ده قال تبتيه هدي شفت طون أنا جوا مريم بحمره أنا جوا مريم بحمره وفي ربك ووالدشيفا إنها هيشتغل ليته ودولة نريد مكان دولة سوي سبع أنا كان هلي بكرينين أنت نايل عجوز أما هناي أو سوي سناي يا ترتي إما كانوا رقمها ساكن لي بي ولا يصور وحوينا صار حوينا شنطة صار حوينا شنطة سوي سنة دو مكان اللي يدرس سوي سنة وأنا كان هلي بكرين عن صوام ما هناي عدنا صوام اللي سوي لي أفكر فيني شكاين كاسر هالسنة أنا كان هلي بكرين دكتور هذا الله يبارك. هرم بكرين حق لقى قال. ما يدري كلام بالو ما ينوم يشوف لكن ما يدري كلام بالو يا وين إن دول السويسي. سواء بقى كان لا يدري هذا كلام بالسويسي. مرة هو تصور شيء ده. يا. وتصور شيء ده بركة. هذا والله يا من الدول كذا دخل فيه عليه من هذا السويسي هذا. والله تحدي سنة بس سنة هذا. هم كور هاي الدير يسهل عندي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو حمزة شغلة قاس وعن كم ذا موادين تقبل كتقدر جارهان دقمدان برعد دقن سيدا هربا يدكو شاقين دخاتير تعمل نير استعال ما انت اللي ارياي هالكن كهد ليسي وحا كتاقين حالة عصبتال كدقمدا برعو كعدون باساك كتاقين انه دادبان صوب وغني بوكا وعن لكو لأن كعدون كعصبتال كتاقين كعدون كمركيان ورئيساني وحكوية من الشغالة اللي ارياي أو سبب الآن لقوا إريء بشي هراء تطبيق طبعاً كذا أنا إن يربح هالكن يقدم تقول بس نشرتي شغالها ما أنت اللي إريء وحي كم ده هاي كوي لا يبقى ده نفتح هاي نرد دالي ما هبين كام ما نكون نعسبالك عاد بين نرد دالي يروح أنتي شينا يا حسن يا رجع كم ده هاي يا أبوه بقى شغاله هو في العناية هالكن كذا شغالين تريبه هاي markii da agaasimaha cusbitaalka iyo sidoo la wareystayna sabab ma ogin bay leeyeen cusbitaalka de malaacid kala haysata annagu garan mayna cid haysata maadaama Cabdulqaadir Xaaji Muuse iyo Dr. Cabdi Yaasin labaduba ay leeyeen waruma hayna dadka waxa eriyay de ma suldaan ba eriyay mise caaqil annagu ma garanayna dadka cid deeriday cusbitaalkan MSF cusbitaal weyn weeyaan gobolka Togdheer MSF intii ay joogtay shaqaadu waxa ka socotay shaqaaluhu wuu isku dhilaa hawluhu si wacan bay u socdeen deegaan ahaan waxaan ka yaraaban jirnay qolada security ah oo aad u ilaalinaysa ammaanka u sugi jirtay laakiin cusbitaalku aad buu wacna imika waxa la sheegayaa in dadkii lacag la weydiinayo 17 bishii hore intuu iga dhimataan sheegayo waxaan waayay dhakhtar kaliya soo dul istaaga sidii aanu keenay aan 3 saacadood baan ku hayay cusbitaalka maalinta ay ku dhimatay marar badan oo ka horena waan keenay dhakhtar soo dul istaagan waayo wallahi de ilaahay baa nafteeda hayo way dhimatay laakiin dayac badan baa jira xagga ka dayacan yahay ma aha xagga shaqaalaha hoose iyo neerasta waa xagga dhaqaatiirta weey xagga maamulka weey Dr. Cabdulqaadir Xaaji Muuse iyo Dr. Cabdi Yaasin iyo Dr. Xasan nin la yiraahdo leeyri waa muxuu Dr. administration ka wax haysta oo isagana bari hargeysan laga keenay nimankaas oo dhani waxaan ka codsanayaa ama sababihii inay sheegaan lagu eriyay shaqaalaha kan ama shoobaraha iyo dhibta ay ka daayaan meel shoobara loogu tala galay ma aha waa meel in lagu nasto iyo dadka lagu daweeyo loogu tala galay cusbitaalkani waa inay ka warbixiyaan sida ugu degdega badan sababaha shaqaalaha loo eriyay waxa loo asbaabaha loo soo qaatay waxa kale oo aan ognahay ka warhaynay MSF inay ka tagtay ugu yaraan ilaa sanadkan 2013 mushaharkiisi iyo dawooyinkiisi 2013 muu dhamaanay bishii 10 hadda gala sagaalaad maanta dhamaada de mushaharkii uu yaala bilaha u dambeeyay inaan dadka lagu wixii looga tagay si wacan loo siiyay aan lagu cuna qabatayn suldaan dadka lagu bedelay safarka de waxaan u arkaa maadaama ay mas'uuliyiintii meesha leeyihiin ma aanan bedelino ma ogin
qaab afaar qabiil baa ka socday hal la ogaado hoos loogu daadego tirada dhabta ah shaqaalo laga eriyo horta magacayga haween Xuseen waxa ka shaqeeyaa qaybta umulaha waxa dhacday inay leedahay shaqaalaha way fara badan yihiin waa qaadimaya taasina de waxay ahayd in tirada shaqaalaha isbintay tirada shaqaalaha isma dhimin dad cusub ayaa keenay markii halkii dadka laga bedelay guud ahaan tirada dhimaya shaqaalaha toos ma garanay laakiin waxa kasta laba qof saddex qof intaas ka maqan intii ka maqan qof walba cid walba loo soo buuxiyo cid ay ka dhiman tahay ma jirto guud ahaan tirada shaqaalaha waa inteedii wax isdhimay ma jiraan wax lagu soo kordhiyay mooyaan talabaad meesha taalana waxa weeyaan shaqaalo qof shaqaalaha loo keenay wax lagu yiri waxa riisankaas lagu reebay ama lagaaga shaqadii aad ma jirto waxa jirta wax la dignin ama waanin oo qofku xilliga uu shaqada xumo la yimaado ama jajaridiisu badato kale in la helo dignin la siiyo dignin qof haystaan lagu ma jiro haba yaraatay qof wax kale oo maxaan rabaa ama meel kale uga yimi riisan kale ma jirto dhamaantood waxa weeyaan qof waxa laga wada reebay guud ahaan warqadii ay ku shaqeyn lahaayeen bishan bilanaysa tobnaad taasina shaqaalii waxay ku keentay wax aan fariid qof ruuxu sidii maxaad samaysay markuu qofka gaar sidii maxaad samaysay guud ahaan waxay noqotay shaqaalo maxay sameeyeen laakiin jawaabta ilaa saakon raadinayna jawaabta wax jawaab oo aan ka hayno ilaa ay imka ma jirto guud ahaan shaqaaluhu qof kasta ama ha joogaan ama ha maqnaadaan waxay isweydiinayaan jawaabta sorry laakiin cid uga jawaabtay ilaa ay imka ma jirto laakiin mid kala jirto qof meesha ku yimi reer ama ku yimi qof shaarkii ma jiree qof walba qalinkiisa keenay qalin baana meesha ka xaynay laakiin ilma aha inay cidna qofna kama warwarsana maxaa lagu reebay oo qof walba dad xirfadlayaal sorry kuma qaban karayaan taas oo wax dhibaato ma keenayaan laakiin ayaan daray ku tahay iyo maamulkii oo bil gudaheed ku kala daatay oo keenay in shaqaalihii ku mariya xariisanay maanta dhan in shaqaalihii maxaan rabaa maanta la yiraahdo lacagdiin ma haynee ayaa naga maqnaada haddana taasina ay beenowdo shaqaale kale lagu dulkeeno aad baan uga xumahay inay taasi ka dhacdo isbitaalka Burco laakiin anagu ma nihin dad isbitaalka tamaan wax soo baranay waa xirfad kale xirfadaan naqaan waa xirfad shaqaalaha dadka loogu shaqeeyo xanuunsanaya laakiin ma aha xirfad biraha lagu garaaciyo mid lagu sameeyo guryaha toona okay waan ka xumahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saxaafadda u sheegaynaa Soomaaliland oo dhan in shalay tolo dhiman shaqaale badan oo isbitaalka hore u joogay muddo aad u fara badan kadib markii shaqaalihii la dhimay shaqaale kale lagu soo bedelay dunida oo ka dhacday in shaqaale la eriyo oo la yiraahdo shaqaalaha waa la dhima laakiin ma nan arag shaqaale inta la dhimo shaqaale kale hadana lagu soo daro kow markii isduuyo wasaaradda caafimaadka la kulanay ee aanu ku niri maxaa sidan ku dhacday wuxuu yiri arrintan warba kama ayo moogiba directorkii isbitaalka aanu nimi wuxuu yiri warba kama ayo administration wuxuu yiri ana shaqadeeda maaha maad roomkii shaqaalaha maamuli jiray ee isbitaalku shalay taasoo mobilka wax dhexal aan ma soo galin isbitaalkii ma diidarin anaga nalimo nalaguma hayo shaqo xumo aan sameynay nalaguma hayo dambi aan ka galay roster baa la soo dhajiyay MSF markii ay meesha ka tagtay wixii ka dambeeyay ay tiri madaxweynuhu iyo wasiiradu soo diray ay raaan shaqada sidii ugu sii jira okay sidii baan ku shaqeynay markii la sameeyay rosterkii aan ku shaqeynay bishan wixii MSF ka dambeeyay waxaan noo sheegay in lagu yiri shaqaalahana waa la dhimayaa wixii la dhimaana lacag ma leh waxaan noo sheegay lacagteedina inaan la siinayn muddadii bishaahid aanu shaqeynayna wax laali wax nalagu ogayn jirin maamulkii dawladda ee meesha joogay waxay noqdeen qof kasta inuu yiraahdo ma hayo mana ogi warna kama hayo wixii meesha ka dhacayba haddana waxaan haysanaa shaqadayda shaqaalihii dadkii lagu bedelay ee cusbaa iyo dadkii la eriyay heerade inay labadooda wasaxeen waatan warqadiin intaadii qofka la eriyay intii lagu bedelan wataa ninka saxaana waa directorka iyo isbitaalka wasaaradda caafimaadka haddana waxay sheegeen Cabdi Yaasiin iyo Dr. Cabdulqaadir haddana waxay leeyihiin war kama hayno wixii aan shalay quraan saxanay waa ayaan daro waxaan shaabada labadooda shaabadna ku ah waxa kaloo jira madaxweynuhu waa kii intuu halka yimid ballan qaaday in aan dadka la weydiinin dawada lacag hadda waa la bilaabay qof kasta oo meesha jiifa heerada sariirtiisa iyo dawadiisa lacag ba laga qaadaa ama safaxa ka tagtay 8 bilood dawa soconaysa dawadood ay ka tagtay tiina farmasiida la geystay badna halkan lagu iibinaya ta kale dawladii Soomaaliland ee hore riyaale kamay dhicin waarka ciyaalka in lacag ka qaado tanna waa laga qaadaya madaxweynuhu baabu sheegaya
ووزيرada noo soo diray baa been sheegaya wasiirka wasaaradda caafimaadkana waxaan ba ogeyn ma dawladda war iska haynin wuxuu sayihiinde ya bismillaahi raxmaani raxiim marka hore magacaygu waa xasan cali muuse anigoo ka shaqeeya departmentiga loo yaqaano pediatric ward anoo ku hadlaya magaca qualified nursingka ee jooga gobolka gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxaanan u dulqaadan doonin fariinta waxaan u direynaa madaxweynahan u direynaa anagu waxaanan u dulqaadan doonin arrimahan tacadiga ah ee qofkii wasaaradda joogayba uu ku tacadiyay qofka shaqaalaha dadku waa wada Soomaaliland weeyaan waxaan soo sheegaynaa way ogtiin wadamada waxa ka dhacaya dad baas bahaystay waa dareemaysan in loo sameeyo kooxaysiga waxa keenay waxa weeye sabab ay ka dambeeyaan qof kasta tacadi lagu sameeyay annaguna waxaan ka maraynaa tay ka mareen dadka iyagu gaarka u dagaalama waxaan soo sheegaynaa in hadii shaqada aan u wadnay sida fiican ee aan u wadnay sidii qolada gaaladuba ay nagu shaqeynaysay in uu awood noo yeesho maanta inanka Ahmad Rumku intuu anaga nabadalo oo inan ay waxay yihiin uu yeero ka socomaysa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan soo leenahay dawladdu marka ay mashaqo dhacdo bay RRU iyo wax la mid ah keentaba ciidan keentay marka hore laakiin kama hadasho xaalada dhacdo kama hadasho anagu waxaan nahay dadkii maanta taariikhda ka celin lahaydeen ee manihin dadka u horseedi lahaydeen in ay qof inta u yimaadaan nimadooda ka maraan waxa la yiri nin carooday cadaab ciil ka dooray se waxaan idin sheegaynaa anagu ma hanjabeeno se waa naloo bareeray waxaan oo bareernaa wax weyn qof bil aadana oo magaalada joognadii halkan waxa aanu aad u dhaliilayna waxa weeyaan dadka mas'uuliyadeeda leh arrimahan ka dhacaya halkan ka dhacaya ee qaabka noocan ah loo dhigay annagoo u shaqeynayna ummadii u shaqeynayna oo ay afkooda nooga ballan qaadeen maamulka cisbitaalku in shaqadii aan si wadno maalintii MSF ay joojisay shaqada oo aan u si wadno sidii hore oo inaga codsadeen inaan u joogno sidii hore u joogno oo aanan ka tagin ummadayda u shaqeyno si annagoo oofinay ayaa heer wasiir loo soo diray arrimihii shaqada ee MSF ay ka haysay sideediba u soconaysaa baa la sheegay arrinkii sida ahaa muu suurtagelin dawadii baa leebinaya arrimihii waa sidoodii xaaladii waxa weeyaan maalin qof la bariyaya marka waxaan oran lahaa annagu waxaan ka caabanaynaa in shaqadiina la eriyay waa sabab la'aan looga eriyay annaga waraaqaha ka soo dhajiyay waraaqaha waxa ku dhagsan isuduwaha caafimaadka ku saxeexan iyo directorka cisbitaalka ku saxeexan annagu sumaanaan arag isuduwaha caafimaadka labana kulmin laakiin directorka cisbitaalka la kulanay wuxuu noo cadeeyay waxa warba ka ahayn waayo qofka intiisa laga sheegay qofka intiisa ayaa laga sheegaa waxaan idin haynaa mid marka waxaan oran lahaa anigu oo aan ku celinayaa horta anigu cisbitaalka tagmayno heer madaxweynaha u diraya inaan cisbitaalka ku tagin ama oo ku dhimanayna ama oo ka shaqeynayna ruubaan u sheegnaa muwaadin ma hadaan xabalka nimina nagu celi oo aad u qoriso qaado nagu celi baan leenahay dilaa ka dhigo waana dhameyn hadalka qaado warka lacagtu ma u sheeg anaa u sheeg magacaygu waa ayaan maxamuud jaamac waxaan kamid ahaa shaqaalaha MSF waxaan ahay arday waxaan ahay nursing waxaan ahaan jirnay dadka shaqaalaha MSF maalintii wayna awareness bixiyay inuu isagu kafaalo qaadanayo ay dawladdu kafaalo qaadanayso nimankan isbitaalka Burco ayna wayna la shireen waxay nagu la shireen inaanu shaqadii joogteen waanu sii joogteen shaqadii saanu shaqaynayna si ka fiican ayaanu u shaqayno waxay nagu soo qoreen 10 nayda aan horena lagu qoroo falhayn waanu ku joognay waxa noogu xigtay liis halka lagu soo qoray la yiri shaqaalaha intaas safety baa ku dhacdo waa laga reebay reason lagaga reebayna ma garanayno imtixaan lagu ma reebin wax kale lagu ma reebin anagu doonaynaa waanu ku dalbanaynaa dawladda madaxweynaha iyaga aan dooranay iyo wasiirada sharafta lahaa halka noogu yimi waxaan ka dooranaynaa in jawaabna loogu celiyo hadii loogu celin waayo oo ay dhacdo in jawaabna loogu celin waayo waxaan anagu dhalinyaro wixii nala gudboon baan qabsanaynaa wassalaamu calaykum bismillaahi rabbil caalamiin ilaahay ma askara markuu ugu horeysa magacaygu waxa weeyaan Cabdiweli Maxamed Cabdi waxaan ahay shaqaalaha kamid ah cisbitaalka magaalada Burco khaasatan waxaan ka shaqeeyaa wardka meel medical waxaan nahay shaqaalaha leeriyay laguna eriyay si xaq darra aan caadi ahayn wax lagu eriyayna aan la garanayn wali xataa aan maamulkiina markaan weydiinay waxa ay leeyihiin wal isku noqon doona mana garanayno waxaan leeyihiin complaint soo qorta
complaint-kana de waxaan ku qorana garanayno wali xatalaan shalay waraaq aan la ogeyn aanan shaqaale ogeyn anoo ku jirno shaqada ayaa la soo dhajiyay waraaqdaas oo ah dadkii shaqeynaya kaliyaata dadkii ka maqnaa waraaqdana ay yihiin dad iska tagay oo aan shaqadii aan joogeyn lacagna aanan ka hayn aanan shaqeynay imika 45 cisho aan ku shaqeynay volunteer koor intii hore aan hay'adu joogin hay'adii ka shaqeyn jirtay dhakhtarka ayaa waxaan ku shaqeyn jirnay volunteer annagoo mutadawwac dadkayga iyo dalkayga wax u qabanayna jecelna inaan dalkayga wax u qabano haddana si wanaag waxa dhacday in hay'ad timaado dadkii ay siiso daily life koodii haddana si wanaag hay'adii markay ay tagtay maamulka gobolka Togdheer waxay naga codsadeen inay shaqadii si soo socoto aan waxba laga bedelin iskuna dumnaano laakiinse imika waxa dhacday in shaqaalii dad la beddelay dadkii la bedelayna qof la bedelay inta waar laga kixiyay waar kale la geeyay ayaa dabeetana waarkii qofkii la geeyay waarkii qof cusub la soo galiyay taas ayaa dhacday taasuna da wax suurtoobaya maaha waana musuqmaasuq laguna qofkii la leeyahay waarkii waarkan baa loo bedelay wax kale ma dhicin laakiin qofkii waarkii laga eriyay qof kale cusub baa waarkii la geliyay taasuna wax suurtagal maaha dee wax bilaadan loola yimaadana maaha wax shaqaaluhu yeelayaana maaha anagu waxaan markaa jecelahay in jawaab cad nala siiyo inta maanta inta hadii ilaahay ka dhigo duurka ka harsan insha Allah